waa tan xaqiiqada dhabta ah ee dhibaatada ku habsatay fanaanka Omar Barbar. Intaynan xaqiiqada u gudagelin waxa la isla dhex marayaa waxyaabo fara badan oo ay ka mid yihiin waa la sixray, balwad buu iska badiyay oo tankiisuu dhaafay, iyo shayaadiinta dadka caabudo ayuu ka mid noqday. Haddaba waxbaa ka jira, waxba kama jiraane aan idiin warrama ee soo dhawaada. Fanaankan oo Omar lagu magacaabo naanaysna ay u tahay Barbar, waxa uu sida caadiga ah degan yahay oo aynu wada ognahay kuna noolaa dalka Kanada. Inta badan Mareykanka ayuu imaanayay, Yurub qaybo ka midna horey ayuu u tagi jiray walow uusan ku badnaan jirin. Hadda waxa ugu badan oo lagu degay ama lagu shirqoolay waa xafladda 1 Agoosto oo rabay inuu Puntland uga qayb galo xafladdaasi una dabaaldego. Sidaan wada ognahay dad badan oo xogogaalana ka soo xiganay, Omar markii uu ka soo duulay Canada, Mareykan ayuu tagay, muddo ayuu joogay, wuu ka tagay, waxa uuna tagay Turkiga. Wadamo badan oo Yurub ayuu isu maray. Ugu dambeyn waxa uu tagay Norway, halkaas ayuu xaflad ku qabsaday. Xafladda halkaas dad badan oo soo agaasimay ayaa waxay uga baxeen ballantii. Dadkaas qaar ehelkiisa ayaa ka mid ah. Waxa uu u gudbay dalka Sweden. Ballanku wuxuu ahaa inuu halkaas ilaa iyo 1 Agoosto joogo. Hase yeeshee maxaa ka soo hormaray? Omar waxa uu ka mid yahay fanaaniinta sida cad uga soo horjeensatay dulmiga iyo waliba alla ka fogaanshaha loogu dhawaanayo shayaadiinta dadka heerka sare gaarsiisa ama dhalanteedka u qurxisa. Omar waxa uu mar walba ka soo horjeeday dadkaas iyo waliba wixii la shaqeeya. Waxaan wada ognahay oo maanta dadku ku baraarugeen in dad badan oo Soomaaliyeed waliba dhinaca fanaaniinta u badan oo tiro 8 gaaraysa inay la shaqeeyaan ilminaadka. Iska badaa madaxda Soomaaliyeed marka aad akhrisatid buugga la yiraahdo La Dagaalanka Nuurka, waxaad ogaanaysaa dad badan oo madax isugu jira iyo Soomaali fara badan oo qurba joog ah oo aad ula shaqeeya shayaadiinta caabuda aaminsanna. Kadib markii uu diiday aan u laabana arinta Omar Barbare, markii uu diiday codsiyo badan oo ka yimid dad ku shaqeysta arrimahaas dadkana u soo gacan galiya ayaa dhibaatadani haleeshay. aad buu u rafaaday oo ma rabno inaan ku noqono muuqaaladiisii, dadkuna way wada og yihiin. Dabcan ilaa iyo xalay ilaa iyo shalay waxa uu ku jira live isaga oo ku haya ibadbaadiya, dhibaato badan ayaa i haysata, u qayla dhaaminaya qoyskiisa iyo faamilkiisa. Haddaba maxay tahay sababta uga cararaya dadka isaga ku dhow? Waxaan wada ognahay haddii aad tahay shakhsi akhriye buugga La Dagaalanka Nuurka, waxaa lagu adeegsanayaa ehelkaaga kan ugu dhow, ha noqoto walaalka, ha noqdo walaasha, ama xitaa kuwa adiga kuugu dhow ee adeerka iyo waliba eedada iyo habareerta kuu ah. Waxaa lagu adeegsanayaa kuwaas, kadibna way ku dhibaataynayaan, maskaxda ayaa lagaala baxaya, waxaana lagaa dhigayaa qof nooc kala ah. Waa Omar, laakiin Omarkii aynu naqaanay ee firfircoonaa ee waliba dadka soo jiidanayay, u sheekeynaya, kaftamayay midna ma ahan. Inta badan dadka Omar yaqaana waxay ku yaqaanaan inuu yahay nin adag. Dabcan sidoo isagoo afkiisa ka sheegayna ka soo jeedo gobolka Mudug oo dabcan lagu yaqaano dad aad u adag, xitaa hadalkooda aysan jilicsanayn oo dad aad u adag ah. Omar waxa uu ku andacoonayaa marka uu live-ku ku jiro, waan daalay, xitaa heer waxaan gaaray buu yiri in aan markaan seexdo labada indhood hal il ka hurdo, sida aan cabsi iyo waliba isu ilaalin darteed heerka aan ka joogo. Waxa uu ku dhawaaqayaa erayo ay ka mid yihiin waan arkay awoodiina, laakiin aniga i nabadgeliya. Maybe waxay u dhigmataa aniga waan idin arkay, waanan idin ogahay, laakiin idinma rabay aniga aan idinka nabadgalo. Badan oo arrimahaasi falanqeeya waxay leeyihiin ma dayn doonaan maadaama uu arrimahoodii fashiliyay, Soomaalidii ku baraarugtay, heerkaasna ay soo gaartay in live-kaas uu dadka u soo bandhiga, Soomaalida u sharaxo. Dabcan marka uu leeyahay anigu nuurkii baan ahay, idinkuna mugdigii baa tihiin, dabcan waa isma qaadan karno oo muuqaalkan qofka daawada kuma adkaan doonto nuurkaas iyo waliba mugdiga uu ka hadlayo haddii uu qofkaasi soo akhristay buugga la yiraahdo La Dagaalanka Nuurka. Buuggaas La Dagaalanka Nuurka waxa uu ka sheekeynayaa wax walba oo ku saabsan ilmanaadka iyo shayaadiinta dadka caabuda. Waxaa qoray qof Soomaali ah oo ka sheekeynaya ilaa iyo London, ilaa Hargeysa, Muqdisho iyo Garowe. Wiilkaas dabcan waxa uu soo bandhigayaa wax walba iyo xaaladda maanta taagan.
arintaas la dagaalanka nuurku waxay soo bilaabatay 2006 wiilka buugaas qoray 2006 ilaa iyo up to now maanta aynu joogno ayuu ka hadlayaa marxaladda taagan ha noqoto khaniisnimo ha noqoto dhaqan dooris ha noqoto diinto Soomaali badan ka baxdo ha noqoto in ay ku soo badato wadankeena nin naag iska dhigaya dabcan dhibaato badan baa halka ka soo gaaraysa marka arimahaas dadku ay ku baraarugaan fanaankan Omar Barbar maadaama dad badan ay hurdeen oo aysan saddexagalka nuurka iyo mugdiga iyo waxyaabahan ilmanaadka aysan shaqo ku lahayn kana warqabin wax badanna uu banaanka keenay hadda waxaynu ogeyn xalay in muuqaal kale uu soo galay booliiska u yimaadeen dhibaato badan leefkii uu ka maray dad ehelkiisa ah ay leefka u soo galeen ay dhaheen annaga ku jeedna booliiska isku dhiib wixii xilliga ka dambeeyay xalay xilli dambe muuqaal dambe muusan ka soo muuqanin gacanta ayaa lagu dhigay dabcan marka gacanta lagu dhigo oo xaaladiisu ay degtana waxaa la sheegay in lagu celin doono Canada oo dabcan sidaan wada ognahay Canada iyo Mareykanka kama jiraan ilmanaadka xarumo kuma lahan wayna iska diideen wadamadaasi halka saldhiga u ah ilmanaadka waa wadamada Yurub markaan faahfaahintaan oo dhan ku siinaya dabcan waxa isweydiinaysa xageebay xogta ka keentay waxaan hayaa buugaas qofkii raba inaan sheekadaas ama taariikhdaas aan u akhriyo oo wiilka Soomaaliyeed uu qoray waxaan qaybta hoose commentiga aad ku soo qortaan nala wadaag xalqad Soomaalidu inta badan wax ma akhriso laakiin waxaan idin la socodsiin doonaa sidii musalsalkii haddaad u baahan tihiin wax badan baad ka faa'iidi doontaan waxyaabaha buugaas muhiimka ah oo ku jirana waxaa ka mid ah haddii aad quraanka baratay way ku anfici doonaa haddii aad carabiga taqaanina wuu ku anfici doonaa maadaama ducooyinka iyo quraankuba ay xijaabaan dhibaato walbo adduunka ka dhacda muuqaalka share garee page-kana follow dheh qaybta hoose commentigana waxaad noogu reebtaa ra'yigaaga haddii aad rabtid in aan buugaas idinla wadaago la dagaalanka nuurka waa idinla wadaagi doonaa waana idiin soo gudbin doonaa fanaankaasna aan u ducayna in Ilaahay caafimaad siiyo shayaadiinta iyo shaydaankana in Ilaahay naga qabto oo muslimka awood siiyo qaybta hoose commentiga ku soo reeb aragtidaada